runtii maanta munaasabadan aan xariga uga jarnay waa astaan weyn oo tusinayso horumarka iyo waxqabadka ka socdo maamulka gobolka Banaadir dowladda hoose ee Xamar mashaariicda waaweyn ee horumarineed ee la xiriirta dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha magaalada. wadadan waa wada aad iyo aad maaragtay si wanaagsan loo dhisay sida odayaasha dhaqanka ninka magacooda ku hadlay oo sheegana waliba waa dhowr wado oo maaragtay ilaa iyo 4 wado oo maaragtay iswada kaabaya. markaan aad iyo aad aan u faraxsanahay inay wadadan maanta xarig jirkeeda oo halkan uu ku qabsoomay. runtii waan u mahad celinayaa ganacsatada ka qayb qaadatay iyo maamulka degmada Hodan. arrintaasna waxay mar walba ay astaan iyo marqaati cad u tahay muhiimadda ay leedahay iskaashiga bulshada gobolka Banaadir iyo maamulka gobolkaba inay iska kaashadaan horumarinta caasimadda inay iska kaashadaan. maamulka gobolka kaligiis wax ma qaban karo, bulshadana kaliya wax ma qaban karto. marka inaan bulshadeena iyo annagaba aan iskaashano waxa waayay oo wax kasta magaaladan horumarkeeda kaalin ka qaadanaya aan iska kaashano waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waaye. marka waan hambalyeeynaya waana arrin aad iyo aad maaragtay runtii muhiim u ah inay sii socoto. insha allahu tacaala maamulka gobolka Banaadir arrimaha la xiriira dib u dhiska wadooyinka waa arrimaha waxay ka mid tahay hortabinta u leh maamulka gobolka Banaadir. dib u dhiska wadooyinka kaliya kuma sinini waxa iyadana marka laga hadlayo soo celinta bilicda magaalada dib u dhiska wadooyinka iyo nadaafadda wadooyinka waa isla socdaan. markaan haddii Ilaahay yiraahdo waxaan wadnaa mashruuc weyn oo isagana lagu soo celinayo bilicdii ay lahayd magaaladan. waa mashruuc la xiriira nadaafadda guud ee caasimadda iyo sidii magaaladan ay u heli lahayd oo ugu furi lahayd mashruuc weyn oo lagu dhisayo biyo mareenno waaweyn iyo bulaacadihii magaaladan biyaha iyo wasaqda lagu maareyn lahaa oo ka saari lahaa haddii la yiraahdo. dhowr sano kadib magaaladan waxaa la rabaa inay noqoto magaalo nadiif ah. magaaladu ammaan wanaagsan oo ka jira waad ogtihiin. ammaankaasna waxaan doonaynaa inaan lagu fara adeego bulshada ugu baaqaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. wadooyin maalin hore wada ayaa la furay waad ogtihiin. dhowr wadana waa la furi doonaa usbuucan iyo usbuuca ka xigaba insha allahu tacaala oo magaalada kamid ah. qaab oo waxaa loo furayaa nidaamsan oo qorshaysan oo hay-adaha amnigana ay maaragtay kaalintooda ay ka leeyihiin. waxaan rabnaa in shacabkiina wadooyinka la furo wixii aan muhiimad weyn amniga u lahayn isla markaasna ammaankiina la ilaaliyo oo hal dhagax maaragtay 2 shimbir lagu dilo haddii Ilaahay yiraahdo. magaalada ammaan waaye. marka madaahirta amni darrada waa in la yareeyaa. markaan haddii dhowr meel ay sii xirnaadaanna hadafku waxa waaye in ammaankii weli lagu sii fara adeego oo lasii waxa waaye marba si tadarruj ay shaqada ay u soconaysaa insha allahu tacaala. marka sidaasna idina la socda. dhanka kale waxaad ogtihiin magaalada maalmaha waxaa ka socda dhowrka bilood la soo dhaafay isdiiwaangelinta bulshada si ay codkooda u dhiibtaan doorashooyinka qof iyo codka ah ee la doonayo guud ahaan wadanka inay ka hirgalaan gaar ahaan magaaladana sanadka intuusan dhammaan inuu ka hirgasho doorasho qof iyo cod ah oo shacabkan ay ku doortaan maamulkii matali lahaa. Hodan insha allahu tacaala sanadka intay dhammaan waxaan rabnaa guddoomiyaheedii iyo konsolkeedii inay doorato dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir inay guddoomiyaashooda iyo konsolkooda doortaan. guud ahaan shacabkan inay mayorkooda iyo konsolka magaalada inay doortaan haddii la yiraahdo. arrintaas marka arrin wanaagsan waaye oo talaab weyn oo wadanka uu u gaaray oo ku talaabsan doono insha allahu tacaala oo wadanka ku hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. shacabka Muqdisho markaan iyo gaar ahaan degmada Hodan waan u hambalyeeynaya inay kaalin weyn ka qaateen inay isdiiwaan geliyeen in maanta guddiga doorashooyinka qaranka numberkii uu baahnay oo magaaladan ka asteestay
إن أو يعني إن لا ضافي وهذا مليون كي يكون سعته أو بحياش أي مليون يكون سعودان هدي له هذا مركز سيدا اسكو ديوان جلسنا إن هذا أوصل بحضان مالين دور الشذا إن شاء الله تعالى أيام رجينا مركز وما سنتي مرة بالمسجد حات runtii wadooyinka la dhagax dhigaan waa dhagax dhigi doonaa mar walbana dawladda hoose xamar kaalinteeda way qaadanaysaa wadada laga hadla daraad oo hadan lagu soo celiyo Suudaanku soo celiyana dawladda hoose xamar waa kaalinteeda way ka qaadanaysaa qaybteedana way dhiibaysaa waana la dhisayaa hadii la yiraahdo waana maasantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.